sanadkii 1958 bay ahayd markii ugu horeysay oo aad shaqo dawladeed aad isqorto waxaana ka mid noqotay ciidanka Guardia di Finanza la yiraahdo oo ah ciidanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha marka ciidankaasi maxay ahaayeen shaqada ay qabanayeen shaqada aad qabanayseen maxay ahayd waa maanta ciidankaas waxa weeyaan konton sideed oo dhiganahay iskoolka waxaa la yiri ciidankaas la qorayaa ciidankaas wuxuu ka duwanaa ciidamada kale Soomaaliya markaas waxa ka jiray ciidankaas iyo biliis baa jiray xoog ma jirin ciidan la yiraahdo Xisaan Ley oo intuu talaalo konti abuuray oo baabashay markuu arkay inuu soconayn marka xoogada maxaa jiray xoog dal wax la yiraahdo waxa jiray biliis iyo ciidankaas Guardia Finanza la yiraahdo ama tibada ciidankaas marka waa ka duwanaa ciidamadan kale qoraalkiisa ciidankaas waa ciidan ku dhisan aqoon baa qofka lagu qaadan jiray waa ciidanka Talyaaniga oo kasaga iyo Karabiyada ciidan waxa Talyaanigu uu ku dhisan yahay oo ku nabad galay dawladda Talyaaniga ma jirta hadii salaas sayn ciidankaas waxay ku dhisan yahay waxan waa sharci iyo maaha bis sharci fiiraya qofka fiirin ma hayaan haddii madaxweyne yahay haddii ra'iisul wasaare yahay haddii wasiir yahay haddii xildhibaan yahay haddii taliye yahay ma kala jecel qofkii dambi galay maxkamadda ay geeyeen marka ciidankaas waxa lagu qaadan jiray shahaado in la sharad ahayd 300 baan ku tartanay imtixaankii 6 qof baa la rabay marka waxaan galay imtixaankii koowaad waxa qaadahayay oo guddiga imtixaanka qaaday madax ka ahaa gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee dalka ninka ayaa madax ka ahaa yani mahabida la siinayo macnaha in weeye sharcigaas markuu la qaaday imtixaankii aniga waxaan ku soo baxay lambarka 5 yaan galay waxaan ridaan kooda galay waxa kamid ahaa Cabdiraxmaan Faroole oo hadda jooga iyo Nuur Xasan Nuur Cade oo dalka Allah naxariisto sagana yaa kamid ahaa ridaan wada galay marka ridaan ka cusub marka lambar marka 6 bilo waxa la geeyay 7 bilood waxa la geeyay oo tabar yaan la geliyay marka imtixaan ka baxay haddii aan ka dhax galo Faroole oo kale marka xilliga imtixaanka aad wada galaysaan aqoon gaar ah ma lahayd oo asxaab ma ahaydeen mise mid aan istaqaan ma dalka dhan aniga ku cusub mid aan isbaan meesha isku baran meeshan baa isku baratay iyo Nuur Cadaan istaqaanay oo magan booli wada deganay asaga oo korkiis ka naqaanay صح asigana waxaan bartay marka meeshan run isku baran arag mooy kale naga dhaxeeyay markaasaan isku iskool ma aan ahayn iskool dhiganay aad sanadkii 1959 bilowgiisii waxa aad noqotay xogayaha ama xoghaynta taliyaha ciidanka ilaalinta canshuuraha tababar aad qaadatay kadib marka ka laftigiisa tababarka markaad soo qaadatay imtixaan kale aad u gashay xilkaasi xoghaynta mise toos baad u noqotay maadaama ciidanka marka horeba aad isqortay ma waxa nidaamka u dhigan ba ciidan buu lahaa ciidankaasu markii aad imtixaanka hore gashid darajada wasi waxaad galeysay tababar baad galeysay dekadii hore xamar yaan ku galay oo iskool ku yaalay 6 bilood aan ku jiray 6 bilood markaan ku jiray imtixaan kale misan laga qaaday imtixaanka markii laga qaaday ninka labaad baan noqday markaas aan noqonay double koro dhan intii hore waxay ahayd waxa ma ahayn waxaan leelis baan ahayn markaas aan noqonay waa nidaam buu lahaa imtixaanka darajada si loo kala horeeyo yaa shaqada loo kala qaaday 10 qof ee ugu darajada badan imtixaanka waxay tagi jireen shaqada ama laanta dhexe laanta canshuuraha ama xafiisyada la geeyay jiray iyagu waardiye ma qabo shaqo kuma lahayn way ka dambeeyay meel geeyay jiray meelaha waardiyaha laga qabto saldhigyada iyo waxa la geeyay jiray marka aniga macdaan hal mar waxa la geeyay laanta dhexe yaan tagay markii hore intaan maalmo jooginba Cabdiraxmaan Faroole lambar 1 noqday markii hore ahaa yaa xogeynta joogay asaga ka baxay wuxuu aaday shaqada intuu ka tagay markii 6 bilood joogay waa bangigu qortay markaas aniga marka waxa la ninkii labaad baa dhabaan ahaa aniga leeyahay xogeynta taliyaha joogay marka halkaasaan shaqada ka hayay xogeynta hadii ahayd arkiibyadii iyo wax walba shaqada dhan cadaankii taariikh gaalada baxaysay la bedelahay oo la Soomaaliyeeyay meesha marka halkaasaan aniga marka shaqada xooggeeda si bartay habka loo shaqeeyay waxaas iyo nidaamka iyo runtii saarkiisa mas'uulka kan waa markaan noqday xidiglaha ciidanka booliiska waa 1968 waa masawirkan waa markaan noqday gaashaan lah asagana
ساعة مسوي كارت يدي علامته مسوي كحويان مركان نقضي عشان للسرع أنا كان نقضي بليسكا أنا نقضي كان المسوي كان ومركان نقضي سرية بوتو أما جنرال إذن كبليسكا قال بدي كون يصدعي مركز شركة عرض اللي يمكن sanadkii 1961 waxaad ka mid ahayd 10 nin oo loo diray dalka Talyaaniga si ay u soo bartaan sida marka loo kaxeeyo maraakiibta taa warbixin naga sii waxaan xogeynta joogay waxaa Talyaaniga waxaan siinayaa laba markab si ay u ilaaliyaan xeebaha kontrabank doonyaha iyo maraakiibta keena u ilaaliyaan marka 10 nin waxa la yiri waxay dhigtay iskool industriyaal iyo maaritima dhigan jiray baa labaas lagu xiray anigu inta dhigan jiray marka sidaas waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa in imtixaankan galay imtixaanka laga qaadanay ninka toddobaad baan noqday waa tagnay waxaan tagay magaalada Rome kadibna waxaan barnaamijyada gaayta magaalada yiraahdo oo maraysan dhigay ku lahaayeen iskoolka laga barto iskoolka nautica iskoolka laga barto badda iyo maraakiibta wax laga barto ay lahayd ciidanka waardiyaha suuraha 10 kani meeshaasaan tagnay maraakiibta yaan loo qaybsan qaybtu baran lahaa aniga waxaan ahaa aniga ninka la Yuusuf la yiraahdo waxaan ahayn korontada iyo raadaarka labadaas aan baranay anagu okay raadka waxay barteen motorka ragga waxay barteen taarkan dhiidhaada ragga waxay tahay wadida sida loo wado saasaan u qaybsanayn 10 kan qalaba meel baa la baray marka labadaas أنا waxaan bartay korontada iyo raadaarka laba sano dhamaysanay marka labada sano oo kulli waxaan la mariyay meesha tributaar kula dhan baan la mariyay kadib waxaan ku noqonay xamar markii ay ahayd 64 waatay maadaama Soomaaliya marka xilligaasi aysan lahayn macnaha ii sheeg maraakiib Soomaaliya aysan lahayn marka sidee wax noqdeen marka ما إلا أقنت وتصبرتين صوماليا مراكب ماله طاب كيف وش خيسان؟ وحويان تلياني جمركي وكان لغوي فكر كي إنه لو مركب سين وحاجات دي بودي هرينا جمسين مركب حاجات دولة ده حاجات بكون شفتها شكي مركب أنا لو سكتشون وحفيز بانك حفيز كان كشغالين شيء حفيز كي وقلت حفيز شغالين قال حفيز مركب شغالين شيء مركب سا واحد عضي xoogga dalka ayaa waxaa la yidhi ruushka waxaan siinayaa laba markab ugu horeysay Soomaaliya labadii marka General Daawud wuxuu yiri war ninkii buu wartay taliyay wuxuu yiri nimankii ragii soo bartay iyo isi markaas xoog wuxuu diray dad buu diray dibadda Saciid Marina iyo Maxamed Ismaar Usmaanki iyo nimanka madaxda ka noqday dambe yaa la diray marka intay nimanka imaanayaan marka anaga waxaa dhacday in maaragtay markaas لحن بوسي لح بلاد بيريان سين لح بلاد أنت دلك أسكت ديار قريبا يعني لح بلاد حنا دري حق دل كان الوش أرجيي بربرة يعني تنو مراكبتي ما نسي ماشي أمريكا حن كاهين أفكي مراكبتي أفكي روش قليل حق وقاطع عصب يعني برينا أنا ومركان أنا بعد ما أنا قاني تكشميني مركا لح بلاد نشوفي كده كتر الحمر بعلمي لين كي كمان كل نقطة waatay marka maraakiibtii ugu horeysay ee markaasi aad la wareegtaan waxay ahaayeen kuwii ugu horeeyay ee dawladda Ruushka ay siiyeen labadii markab ee ugu horeeyay dawladda Ruushka ay siiso Soomaaliya labadii markab ugu horeeyay nimankii la wareegaan aniga la wareegnay maqal Ruushka la wareegnay nin waxa la socday Turjubaan oo Talyaaniga yaqaan marka ninkaas Afruushka aad Talyaaniga ku hadlaya marka anaga baadaan Talyaaniga ku soo baranay anaga Turjubaan saasaan u turjuminay qoladii horeysay xoogga dalka ahaa oo maraakiib ciidanka badda noqday nimankii waxaan ahay wax baray oo tusay intii ku dibadda ka imaanaya ay ka imaanayaan